nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada bismillaahir rahmaanir rahiim sidii taxanaha inoo ahayd casharadeenii maanta waxaanu dib ugu noqonaynaa chapterkii koobaad ee buugga geography-ga classka form 4ka chapterkani wuxuu ka hadlaa waa chapterka koobaad ee buugga geography-ga waxaanu ka hadlaa gaar ahaan agriculture-ka waa chapteradii laga soo qaaday markii agriculture-ka lagu kala daray loo qaybiyay buugaagta biology-ga maadooyinka biology-ga iyo geography-ga chapteradii agriculture-ka laga soo qaaday ee lagu daray buugga geography-ga ayuu ka mid yahay chapterkani waa chapter muhiim ah waxa la yiraahdaa climatic factors those influence in agriculture especially in Somaliland and markaynu leenahay climatic factors agriculture-ka ama in wax la beero ama xoola la dhaqo waxa saameeya waxyaalo kala duwan markaynu leenahay waxyaalahaasi way saameeyaan it means these factors can influence positively or negatively ama wuxuu yeeshaa shaygaasi saameyn taban ama wuxuu yeeshaa saameyn togan oo waxtar leh haddaba climatic factors waxay ka mid yihiin waxyaalaha climatically saameeya waxa la beerayo ama xoolaha la dhaqanayo iyagoo u saameynaya si positive ah oo togan oo waxtar leh ama u saameynaya si negative ah oo waxyeello leh climatic factorsku waxaynu u qaybinaynaa kuwa muhiimka markaynu soo qaadano rainfall waa roobkii sidaynu ognahay arday roobku saameyn toganna wuu ku leeyahay waxbeerashada saameyn tabanna wuu ku leeyahay waynu sharaxi doonaa qaabka ugu yeelanayo waxa ka mid ah temperature waxa kaloo ka mid ah light waxa kaloo ka mid ah relative humidity waxa ugu dambeeya winds rainfall roobku saameyn taban ama saameyn togan buu ku leeyahay agriculture-ka temperature-ku waynu arki doonaa saameyn buu ku leeyahay noqon doonta ama mid taban ama mid togan agriculture-ka light-ka laftiisu saameyn buu ku leeyahay agriculture-ka relative humidity-gu sidoo kale windsku intaas oo qodoba waxay saameeyaan oo si togan u saameeyaan ama si taban u saameeyaan agriculture-ka haddaba climatic factors waa maxay climatic factors have highest influence buugineedneegiye waxay ku leeyihiin saameynta ugu sarreysa on agriculture in Somaliland agriculture-ka Somaliland sidoo buugeenu soo dhigayo laakiin the worldwide marka laga hadlayo factorskani waxay toos u saameeyaan oo saameynta ugu weyn waliba ku leeyihiin agriculture roobku sidoo saameeya rainfall is the most important factor waa qodobka ugu muhiimsan marka climate-ka laga hadlayo as it's the source of water necessary for all life processes ee muhiimka u ah dhammaan nolosha oo dhan waxaynu ognahay waxaynu isweydiinaynaa roobku sideebuu u saameeyaa dalagga la beerayo ama xoolaha la dhaqayo ama agriculture-ka horeynu soo sheegno waxaan nidhi qodobada ugu muhiimi waa dhaqashadii xoolaha waa farming oo macnaheedu yahay dhaqashadii xoolaha ama beerashadii roobku haddaba wuxuu u saameeyaa sideedaba markaynu roob ka hadlayno roobku waa sooska aynu ka helo biyaha haddii aan biyo la helin waxba lama beeri karo waxna lama dhaqi karo
haddii aan biyo la helin nolosha kale oo dhammi ma suurtageli karto sidoo kale iyadoo roob da'ayo ayaa mararka qaar roobka wuu yaraanayaa mararka qaarna wuu badanayaa dalagyada qaar roobkii yaraa way ku baxayaan halka dalagyada qaarna ay u baahan yihiin biyo badan iyo roob badan ay u baahan yihiin kaliya roob badan oo kaliya ku bixi karaan marka haddii dalagani uu yahay dalag u baahan biyo badan eriyada laga beerayna roob yari ka doo it means dalagaasi bixi maayo hadduu baxana si wanaagsan u midhayn maayo oo bixi maayo haddaba haddii dalagii uu bixi waayo roob yari awgeed ama biyihii uu qawaday waxa dhacaysa oo bixitaankiisu xumaado ma negative buu saameeyay mise positive buu saameeyay negative buu saameeyay haddii dalagani uu biyo badan u baahan yahay meeshan uu ka baxayana roob badani ka doo deedna biyihii baahidiisa ahaa uu helo sidee buu saameeyay baynu isweydiinaynaa roobkan meesha ka daaya wuxuu u saameeyay si positive markaynu leenahay ama si negative uu saameynaya ama si positive saasaa laga hadlaya temperature let's come to temperature intaynan temperature-ka gaadhin waxaynu qaadanaynaa rainfall-ka maxaa hoos yimaada haddaba rainfall-kaynu kala qaadaynaa rainfall is the most important factors waa qodobada ugu muhiimsan marka climatic factorska laga hadlayo as it's the source of water maadaama oo uu yahay ishii laga heliyay biyahaasoo necessary lagama maarmaan u ah for all life processes dhammaan dhinacyadii nolosha oo dhan ma aha wax beerashadii oo qura dhinac walba aynu ugu baahanay roobka lack of rain haddii roob la waayo it means farmers beeralaydii ama xoolo dhaqatadii cannot plant ma beeri karaan new plants geedo cusub ma beeri karaan the growing ones kuwii baxayeyna my wilt way qaadhayaan and die waanay dhimanayaan or they may not yield ama wax midha ma yeelanayaan as expected sidaynu filayno waxaa la yidhi haddii ardayay biyo la waayo uu roobdii waayo saddex problem baa dhacaya kow dalagyadii cusbaayee la beeri lahaa sanadkan inay bixi waayaan number 1 2 kuwii hore beerta ugu yaalay inay qaadhaan deedna ay dhintaan 2 3 ama inaanay markay biyo ku filan waayaan ay heli waayaan inaanay midhaba dhalin inaanay crobiskii flowering stagekii flowerinkii samaynin ubaxaynin midho dhalin waxaynu uga baahnay inaan ka heli markaa macna samayn mayso yes markaa roob la'aantii it means dalag ma jirayo xoolana lama dhiqi karo hadduu yaraadana wuxuu waa yaraanaya haddaba roobka dhinacyo badan baynu ka eegaynaa rainfall reliability rainfall reliability amount of rainfall rainfall distribution your rainfall intensity intaasoo dhinac baynu ardayga ka eegaynaa siyaabaha roobka aynu ugu baahannahay rainfall reliability xilligaynu isku hadlaynaa roob inaynu helo at what time are we going to depend on to get rain to get water for our crops or livestock